waxa kaloo aanay Soomaalidu muddooyin ku dambeeyay ku midaysnayn diinta oo runtii buriyada hore dadka Soomaalidu dad wada Muslimiin ay ahaayeen Shaafici oo Sunni oo maxay meeqaam diini dhisan leh aan ka yara dhaxgalay waxa tiri waxyaabaha aan maaragtay lagu kala tagay waxa kamid ah diinta حتى الآن وحين أجنهي إن Somalidu ده مبادئ هكلا من سرعته أو معركتي نحوها فرقين تربضن وقاركود سردية يعني صبحا لكن دينتي إسلام كا هايستان مع عدة ذلك كواركتين دينتا معركتي بربر مرتي أما ديمك kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad caalamka daafihiisa naga daawanaysaan waa barnaamijyadeennii aanu ku soo casuumi jirnay hadba mid ka mid ah haldoorka bulshada waxa caawa ila joogay stuudiyaha Iid Aadan isla mar ahaantaasina ka mid ahaa rugcayadaayada saxaafadda Soomaalida kuwooda muddooyinkii ugu dambeeyay deganaa dalkan Jarmalka Iid oo wax badan aynu caawa ka filayno inuu inooga warramo waxaan ku soo casuumay barnaamijka Iid ku soo dhawo aad iyo aad baad mahadsantahay Sakriyo aad iyo aad baad mahadsantahay guud ahaan waxaan salaamayaa adiga daawadayaashadaba aad baad u mahadsantahay anaguna sidoo kale kulay barnaamijkan waxaanu kaga hadli doonaa arrimo khuseeya dalka Jarmalka gaar ahaan muxuu ahaayay dhinacyada bulshada maadaama bulshadanu u baahan tahay mustaqbal hufan in maaragtay iyo dhabo wanaagsan loo jeexo Iid balorta waxaad ka warantaa dalkan Jarmalka waxa ka jira muxuu ahaayay ururo bulshood jahaliyado muxuu ahaayay bulshadu unkamayso oo aad moodo inay hadda maaragtay ay dhabihii muxuu ahaayay dhismaha ay hadda qaaday maadaama bulshada dalkan ay aad ugu cusub tahay wadanka balorta xaaladihii u dambeeyay maxaad kala socotaa Sakriyo wasaad sheegtay runta markan guud ahaan dalkan Jarmalka ka hadlayno waa dalweyne weyn kuna yaala bartamaha wadamadan qaaradda Yurub oo wadan runtii bilowgii marka laga hadlayay kacdoonadii Soomaalidu ay dhulkooda ka soo barakacaysay soo kacaysay mar walba wuxuu ahaa halbeeg marka maanta faaca dunida aad eegto aad Soomaalida la sheekaysato dadkii waqtiyada hore soo galay boqolkiiba tiro ka badan waxaad arkaysaa kaaga sheekeynaya safar kala duwan ee Jarmalka ku mareen iyagoo inta badan yoolkoodu ahayn wadankan inay degaan laakiin haddana wuxuu marin noloshooda xiriiriyay oo Soomaalida runtii socdaalkeedii markii dalku ka burburay dhibaatooyinkii dagaalada sokeeye Soomaaliya cagaha la gashay dadkii Soomaaliyeed ee Yurub soo aaday runtii wadankan wuxuu ku yeeshay saameyn weyn noloshooda wuxuu ahaa wadan halbowlo ah safaradii ay ku beegsanayeen dalka kala duwan ee qaaradda Yurub dadka faraha badan leh inta leeg runtii tiro yar un baa kaga hadhay marka wadanka Jarmalka sii joogtay wadamo fara badan ayaa loo dhaafay sabab kala duwan oo loo dhaafi jiro inta badan fikrada umadu ay ka haysato ku saabsanaa in colaadihii iyo cunsurnimadii ururadii naasiga iyo taageerayaashii xisbigii Hitler ee dagaaladii waaweynay dunida ka dhacay sabab dartood iyo wadanku inta badan dadku ay ka haysteen sawirgooda ayna wadan lagu nagaan karayo wala degi karayaan ay Soomaalidu dhaafi jirtay dadka Soomaalida maanta ku nool marka Soomaalida Jarmalka laga hadlayo wadad 15 sano u dambeeyay runtii degay badidoodu majority-ka Soomaalida maanta kumanaan lagu qiyaaso wadad dhalinyaro u badan wadooyinka runtii muddooyin ku dambe aad isaga dabaymanayay oo ku soo qulqulayay waxaana muddadii 10 sano u dambeeyay runtii Jarmalku oo aad iyo aad Soomaalida ugu wanaagsanaa marka wadamada Yurub kala la eego wadan ay sharciye ka helayeen buha wadan xataa kuwada aan sharciyada marka waaweyn rasmiga helayni waxay helayeen shaqooyin joogta ah oo bulshadu markii waxay dhaxgalisay ummadaha iyo dalka iyo dadka ay la joogaan waxaana runtii taas sababtay in dhalinyaro fara badan oo maanta sanooyinka u dambeeyay soo galay wadankan ay ka mustaqbal wanaagsan yihiin in ka hayn fiican yihiin ka shaqo wanaagsan yihiin Soomaali kale oo dalal waaweyn oo Ingiriiska iyo wadamada Scandinavian ka mid yahay oo sanado fara badan ka hor Yurub soo galay laakiin shaqooyinka iyo idilooyinka dadka Jarmalka jooga haysta aanay haysanin dabcan ayaan darooyin kale ayna way jiraan oo ku saabsan maadaama dadku ay yihiin dad wada cusub wadankuna wadan loo siga wada cusub yahay in la waayay waxaan lagu yiraahdaa afka qalaad maxay role model qof dadkan ku daydaan oo ummadan hagaajiya oo jaha la raaco dadkii halkan wadiin waxay iska wada badnaayeen dad noloshooda bilaabayay qofka ka soo horeeyaan wax badan oo uu kaga dhaamo oo kaga sii daydaa jiray mar la wada bilaabay marka dalku runtii wadad Soomaalidu in Sakriyo ay maanta bilow wanaagsan ka bilowday laakiin waxyaabo fara badan oo hore oo kayd ah oo Soomaalida u yaalay oo dadkan cusub raac u noqon karayaan ka jirin markaynu eegno dhinaca role modelka ama qof dad ay dadkan ku daydaan aad ka dhawaajisay
waxa muxuu ahaayay imaka sanadada 10 sanadood u dambeeyay Soomaalidu aad ugu soo badanaysay wadankan ilaa imakana kama jiraan wax community xataa muxuu ahaayay si guud ugu diiwaan gashan dalkan markaan ka hadlayno Soomaalidu guud ahaan oo dalkani maanta hadii dhibaato maaragtay Soomaalidu ku dhacdo maaragtay loo yeerayo oo ka warbixin karaya baayir ilaa maxay Hamburg inta u dhaxaysa ilaa Bremen iyo gobolada 16 gobol Jarmalku ka kooban yahay marka maxaa taa u sababay kula tahay waxa uu sabab sakriyo isla su'aalo dhowaan weydiiyay in waqti hore saxaafada ku jiray halkan ugu yimi oo Ali Saciid looran jiray oo isaguna saxaafi hore iyo taariikh qoriye farshaxan ahaa waxaan weydiiyay sababta Soomaalidu halkan aan ugu lahayn raad culus oo ka turjumaya joogitaankooda sida jaaliyada awood leh gooba ay deegaamaystoon ay ka sameysteen macbudiye meel alla ku caabudan masaajidiya meel ay dhaqankooda ku muujiyaan maxaa raadadkaas oo kale looga waayay sida ummadaha kale halkan ugu nimay Turkigu kamid yahay Greegu kamid yahay Talyaanigu kamid yahay ninkaas wuxuu ugu yiri in hadaan iyo ummaddu wasaalan ilaa maanta maskaxdeeda ku soo noqnoqoto dhowr iyo 10 sano aan Soomaalida ka dhaxarkay hadaan ummaddu mabdig mideeyo oo asal u ah lahayn in wax badanna banaanka kama midoobi karto wuxuu dadkii halkan soo mariyay ninkaas muddo dheer joogay buu ahaa markasta iimanayeen waxay iimanayeen mabaadi iyo tafaraaruq ay gudiga kala yimaadeen Soomaalida maanta marka casrigan joogtay imika wari joogtaa marka magaca Soomaaliland laga tago Soomaaliyeed laga tago wax kale ku midaysiin ma jirto dalkuma midaysna maanta Soomaali waad ogtahay maxay dhowr iyo 10 dal baa ka jira cid walba gaarkeedii nidaamkeedii wax wadataa oo siyaasad Soomaali midaysa iyo calan iyo dal lagu wada midaysan oo la isla ogol yahay ma jiro marka laga tagay Soomaaliland inta Soomaalida kale isugu soo hadhay mid wala maamul goboleed uu ka abtirsaday iyo calan yar gooniya qabaayil Soomaalidu iskuma ogola oo wadarka salka heerka qabaylada lagu kala joogsan yahay oo qofku ka sii carray ilaa marka qarxata jufooyinka oo say Soomaalidu isula degto taasna waxay qayb ka tahay waxyaabaha aan salka u dhigin Soomaalida waxa kale oo aan Soomaalidu muddooyinku dambeeyay ku midaysnayn diinta oo rudii buriyada hore dadka Soomaalidu dad wada muslimiin ay ahaayeen Shaafiiciya oo Sunni oo maxay meeqaam diini dhisan leh marka qofka diin la iska taagan la haybadayo wadaadadii Soomaalida waa garan kartaa sakriyo haybada ay umada dhexdeeda ku lahaayeen iyo si la iska taagi jiray laakiin taasu waxay ahayd waxyaabihii burburay Soomaalida ka mid noqotay marka dadka Soomaalida waxay noqdeen dad aan lahayn asal iyo rukumo adag oo mideeyo marka hore isugu keenaa iyagoo soconaya halkan markay yimaadaan mabaadiidii iyo dhibtii ay kala yimaadeen Afrikana wali maskaxdooda ay ka dhex guucayso waxa markaba tafaraaruqay halkan kala yimaadeen halkan oo la imanaya tafaraaruqa baahay ee aan jirin runku lagu mideeyaa runtii wuxuu sababay inaan Soomaalidu rukuno waaweyn maadaama dad cusubna yihiin kuwoodu horna aanay dhisin ay rukumo weyn wadanka ku yeelan kareen markaad aragto meelo wax lagu abaabulayo oo meelaha ururada jaaliyadu kamid salka loogu dhigayo la doonayo markiiba kala abtirsi bay manaya marka hore wuxuu ka soo bilaabmaa dal iyo deegaan muddo marka la murmo marka hore waxa la mabanihiin oo waa kala abtirsaa gobolada loo kala abtirsaa haddii xataa laba gobol israacaan labadaas si kala taga gobolka laftiisa marka dambe degmo u kala jaba degmooyinka laftooda marka dambe jufo u kala jaba waxyaabo noocaas waxay kamid yihiin waxyaabo aan Soomaalida salka u dhigin maanta ee dalkan jooga runtii meelo badan laga yaabay in tafaraaruq noocaas ka jiro oo Soomaalida sabab yahay marka durfaan noocaasa ayaan sakriyo tan iyo hadda suura gelin Soomaalida horta guud ahaanteeda markaan ka hadlayno aan ka yara dhaxgalay waxa tiri waxyaabaha aan maaragtay lagu kala tagay waxa kamid ah diinta xataa laan waxaynu ognahay in Soomaalidu mabaadi ha kala aaminsanaato oo maaragtay muxuu ahaayay farqooyin tiro badan oo qaarkood isradiyayaan soo baxaan laakiin ay diintii Islaamka haystaan ma cid baad halkan ku aragteen diinta maaragtay barbar martay ama diimo kala qaadatay maya runtii marka ummadaha kale loo eego dadku waxaanu ka midnay ummadaha Ilaahay iimaankooda ku sugay inta badan aad iyo aad u dhib yartay dadka diintooda ka guurguura marka Soomaaliga gudaheeda laga hadlayo laakiin tafaraaruqa diinta lafkeedu ay runtii Soomaalidu ku sii kala joogto ay mabaadi kala duwan gasay iyadoo maanta Soomaalidu dad wada muslimo wada sunni yihiin ayay haddana fariiqooyin hoos u sii kala tagsan yihiin waxay taas meesha ka saartay mar haddaan Soomaaliga dalnimo ku midaysnayn oo dal Soomaaliyeed oo calan maanta la wada haystaa jirin mar haddaan Soomaaliga qabiil u midaysnayn oo hal qabiil oo Soomaali isku wada xidho isku wada unka koro isku keni karaanu jirin waxa rukunka ugu dambeeyay la isku iman karay waxa in dadku dad wada muslima ahaadaan taa laftigeeda ayaan maxay maanta diskariini xogaala tahay aan ahayn Soomaalidu waxay isla wada ogashahay oo waxyaabaha gudihii ka jira dabcan halkana waa ku jira saameynteedu ku leeyahay markaynu eegayno waxa jira community yar oo waqtiyada qaar muxuu ahaayay banaanbaxyo iyo cabashooyinka muujiya marka dhibaatooyinka qaar yimaadaan inkastoo aan maaragtay su'aalahooda iyo maaragtay codkoodu meel dheer gaadhin
maxaa hortaagan in community-yada yaryar ama ururada yaryar bulshadu ee gobolada ka dhisan ay midoobaan horta xagga midowga waxa hortaagan sakariyo dhibaatooyinkan ka soo hadalnay tafaraaruq ee wadanka gudihiisa kala yimaadeen in codkoodu si meel gaadho oo socdayna waxa hortaagan amuro kale dadkan inta badan waxay isaga badnaayeen waqtiyadii hore dad cusub dad aan waxyaabo badan gacanta ku haynin dadkii tirada yaraa ee dalka ugu yimaadeen ay isaga badnaayeen dal systemka dawladda ku nool taakuleynta dawladda isaga nool iyaga la kaaba ah sidoo kale aan ahayn dad cod bixiyaal oo midaysan oo maxayday cod wadanka ku soo kordhiya dhaqaale buuran iyo shaqaale cashuur bixiyaalo adag oo la yaqaan aan ahayn waxay ahayn dad iska yar oo minority oo aan bulshada saameyn weyn ku lahayn inta badanna ku tiirsan 99% wax ka badani waxay ku tiirsanaayeen caawimaad ay dawladda dadkaas ka helaan taas waxay runtii markaa ay dhibtay oo ay xadiday meeqaamkii kartidooda iyo awoodooda ay gaari kareysay markii Soomaali fara badan oo dhalinyaro 10 sano u dambeeyay wadanka iskaga soo daba dhacayeen waxa runtii xoogaysay duruufihii wadanka yaalay waxa ka mid ah in dalkani oo runtii aad ogtay wadamada marka dhan laga xagga sharciyada aad ka xirxirani oo shuruucdii Soomaalida xadiday qofka Soomaaliga ah ee aan haysan warqad aqoonsiyo ka dambeeyay dawladda Maxamed Siyaad Barre warqadiisa wadanka laga ma aqoonsana taas waxay sababtay in Soomaalida dhinacyo fara badan oo nolosha ka mid ah dhibaato kala soo daristo dhinaca guurka dhibaato kala soo daristo dhinaca dhalashooyinka dhibaato kala soo daristo dhinaca awlaad iyo marka carruur u dhashato dhibaato kala soo daristo maadaama qofkii aanu wadan dukumenti uu isku cadeyn karo waxa ay noqotay in la kala faquuqo qof iyo ubad ku dhalay nin iyo xaaskii oo loo diido in loo aqoonsado qoys midaysan oo meel degan oo salka ku haya waxyaabahaas waxay runtii Soomaalida ay markaa ka saari karayeen oo ka bixin karayeen community awood leh oo midaysan community-gaas meeshii ma jirto harana uguma iman iyaga gadaashoodna kamaysan dhalan dawladuna codkoodu uma dhaga nuglaano ma aha dad cod bixiyaal oo buuran oo meel jooga sidoo kale dad fara badan oo awood loo shaqaysto cashuur dhiibayaala oo waxyaabo badan inta iska kaashadaan istabiri karayaan ma ahayn inta badan noloshoodu waxay iskaga tiirsanayd taakule ay dawladda ka helaan duruufaha noocaas waxay sakriyo markaas sababeen inaan Soomaaliya waa tahay marka aynu ka tagno dhinaca maaragtay waxyaabaha u qabsoomi waayay Soomaalida ama waxyaabii qabiyada ka noqday bulshadeenan halkan ku nool aynu u gudubno dhinaca positive-ka waxyaabaha ay qabsadeen oo kala Soomaalidu maxaad oran kartaa waa lagu amaani karaa bulshadan curdinka maadaama aad og tahay inay curdin tahay oo 10 sano markii dhinaca kale ka eegno 10 sano qof wadan cusub yimi oo maaragtay bilaabayo oo seeska ka soo bilaabaya meeshuu gaari karayo in ogni maxaad u malaynaysaa inay qabsoomeen wax badan runtii ayaa la amaani karaa marka la eego saan ku sheegay dad tusaale u ahaa tusaalahan dal cusub yimaadeen marka guud ahaan laga soo wada qaado la isku soo wada duubo saan sakariyo xusnay waxay u badan yihiin Soomaalida maanta joogta dad dhalinyaro runtii oo aan waxyaabo badan halkan ugu iman wax kasto ay halkan ka bilaabayeen ay tahay waxaan iyaga cid uga horeyn aan looga horeynin dabcan waxyaabo markaad eegto heerka maanta Soomaalidu ay shaqada ka joogto in wax runtii aad looga farxo waa xoog dhalinyaro ah Korea waxa ku diilo gelinaysa ku tusaysaa in dalkani noqon doono meel mustaqbalka Soomaalida meel weyn kaga jira dad dhalinyaro ah oo sharciga weyn 200 oo shirkadda Amazon oo kale waxa goobaha qaar aan booqday aan ku arkay 300 ilaa 200 tiro u dhaxaysa oo kala duwan shiisho kala duwan kala oo hal degan ka wada shaqeeya dhowr meelood xarumood ay shirkadaas leedahay waxaad arkaysaa goobaha ay korayaan tusaalahan madaarka kala arkaysaa si u galayaan waxaad arkaysaa meelaha waaweyn ee warshaduhu ku jiraan meel kasta xoog cusub looga baahday runtii aad bay uga dhex muuqdaan waana korayaan oo waxay taas ay ku tusaysaa inay sameynayaan kornimo runtii dhinaca fiican u socota marka eegto dhinaca dhexgalka dhinaca barashada luqadda korinta iyo la qabsiga wacyiga runtii bulshada ay ku cusub yihiin marka dhanka ka eegto waxa runtii aad arkaysaa waqtiga doontaba ku qaadato caqabadaha doonaanbaha hortaagnaadaan oo har joogan laakiin Soomaalidu waxay u socotaa jaha wanaagsan dhinaca hadaynu dib ugu yara noqono aan dib ugu noqono dhinaca community iyo dhismaha maaragtay ururo bulsho oo maaragtay awood leh sidaad u malaynaysaa hadiiba maadaama dadka hore wadanka aad ka mid tahay ama dadkii dhexeba aan dhahdo muddo xoogaa aad joogtay wax badan aad ka ogtay Jarmalka dhinacan miidiyuhuna uu ka caawiyo aad wax badan maaragtay ka sheegi karto maxaad u malayn kartaa inay maaragtay ku iman karto community adagoo dhisma community adag oo dhisma oo Soomaalida runtii wax tara waxay ku imanaysaa
hal qodob marka la helo marka la ogaado ay Soomaalidu yaqiinsato in community waxa loogu baahan yahay tahay in nolosha Soomaalida halkan joogta ay iyagu baahantay in ubadkoodu u baahan yahay in kooda weyn u baahan yahay in dumarkoodu u baahan yahay in carruurtu u baahan inaan community-ga loo fahmin tusaalaha maanta halka yaalinta badan dhalinyaradu fahamsan waxa weeye in community-ga waxyaabo wax lagaga qabto Soomaaliya gudaheedii amba siyaasad danaysta lagu gacan siiyo wax lagu qabto ama waqti la isaga lumiyo in magac iyo maamuus lagaga raadsado sistamyada iyo maamulada kala duwan ee Soomaaliya gudaheeda maanta ka jira ee midba si gaar ah runtii u hirdamayo community waxa weeye waxay faa'iido ku tahay waxana u taraysaa Soomaalina maanta ay anfac u yeelayso jarmalka gudihiisa markay u arkaan inay yihiin shay iyagu noloshooda iyo mustaqbalka ubadkooda iyo iyaga mustaqbalkooda wax ka tari karaya maanta jaaliyadaha kala duwan iyo ummadaha kala duwan ee waddankan la noolahay waxa loo kala qadariyaa loo kala ixtiraamayo oo waddanka loogu kala dhagan nugul yahay sida ay community-ga iyo jaaliyadaha maamula ay ugu kala awood badan yihiin oo ay ugu kala power badan yihiin waddanka gudihiisa ay runtii dalkan uga dhex muuqdaan marka Soomaalidu horta waa in marka hore fahantaa in aasaaska community uu yahay shay iyagu ay u baahan yihiin inta looga baahan yahay dalka dibadiisa tusaale ahaan inaan community loo arkin shay loo aasaaso si gudaha waddanka wax looga qabto laakiin waa in loo fahmaa in community loo aasaaso community ka jawaaba baahiyaha ummadda Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka gudihiisa ku nool wax ka qaban kara marka ka runtii la aasaasay la dhiso ayay runtii taabagelaysaa maanta way jiraan community yar haba kala duwanaadaan oo meelo kala duwan maamula inta badan waxay awoodooda ku ururtaan in gooba lagu cibaadeysto masaajidda maamulaan inay magaalooyinka tala bixiyaan laakiin ma joogaan heer in weyn oo dhibaatooyinka faraha badan leh ee ummadan ku cusub dal cusub yimi dhaqan cusub yimi siyaasado cusub oo antay bulshadoodii dalkooda ku soo arkeenayn soo dhaxgalay baahiyaha noocaas ka jawaabi kara heerka ma taagna waxa taa lagu heli karaa marka cududaha faraha badan leh kala firqsan la mideeyo in loola jiheeyo loola diyaariyo inay noqdaan awood ka jawaabi karta baahida faraha badan leh ku gadaaman bulshada Soomaalida ee jooga dal ay ku cusub yihiin guntiga gabagabadii barnaamijkeenu maraynaa ma jira wax talo aad caawa halkan uga soo jeedinayso community-da tirada beelay ee ka jira gobol kasta ee aad u malaynayso in maaragtay waqtigan aanay doorkii ama sidii loogu muxuu talagalay u shaqeynaynin de markaan horta ka hadlayna moogtay community-da aanu la hadli karin garan karnaa waa ku tira beelay moogtay marka Soomaali laga hadlayo intaasoo nooc oo community ay u jiraan kuwa gobolay u jiraan maamul goboleedyo u jiraan qaarkood kuwa Soomaali ahaan oo dhan matalaya kale u jiraan laakiin talada ugu wanaagsan ee nu siin karnaa waxa weeye dadka hormuudka u ah waxyaabaha noocaas fikradaha abaabulaya inay ogaadaan inaan community la dhisi karin haddaan ujeedkoodu ahayn in ummadda halkan joogta wax lagu noqdo waayo qofka community waxa u xisaabsan ama ururka community ama bulshada marka ururka dhisaysa waxa u xisaabsan oo ay tahay wax ka doonayaan qofka halkan jooga waa inay awoodooda ku darsadaan in ay dadka ay maamulayaan dhaqaalahaanna taageero uga baahan yihiin cudurdahaanna ay tusi karaan dawladdan iyo dadkan inuu martida u nahay la joogno in iyaga wax loo qabanayo dadkan hadan laba in mashaakilaadka iyo khilaafiga siyaasiga nooc doonaba ha ahaado amba tafaraaru reer ha ahaado amba ku siyaasi ha ahaado amba ku si kale u yimaadeen mashaakilka gudihii ka jooga inaysan ku khaldamin oo aanay ku milmin ururada bulshada arrimaha bulshooyinka ka shaqeeya ee dalkan ku nool ka shaqeeya waa in arrimaha ay ka shaqeeyaan ahaadaan mashaakilka runtii mashaakil ku filan uu ka jiray mashaakilka ummadan iyo dalkan ay joogaan dhexdiisa ka jira aad iyo aad ayuu mahadsan yahay iid aadan oo waraysigan noogu marti ahaa runtiina aan filayo inuu wax badan caawa ka dhawaajiyey meesha wax ka qaldan yihiin sida aynu wax ku samaysan karno iyo sida bulshadani ay maaragtay u noqon karto bulsho la tartanta bulshooyinka kale ee dalkani maaragtay horumarka la taaban kara ka gaadhay iyagoo isku duuban barnaamijkeenani waa wuxuu dhiirigelin u yahay in maaragtay Soomaalidu maadaama ay dal cusub joogto dalkan ay dib u degeen inaanay ku milmin muxuu ahaayay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo qabaa'ileed ee wadankii maaragtay ka keenay isla marhaantaasina taa bedelkeeda ay halkan si midnimo ku jirto wax uga wada qabsadaan barnaamijka waxa idii daadihinaya anigoo Sakariye Jeylaaniya iidaadanna wuxuu ahaa soo jeediyaha iyo ka qayb qaataha barnaamijka iyo sharaxahaba waxaan idinkaga tegaynaa intaan barnaamij sidan oo kale ku kulmayno haddii aad ku cusub tahay muxuu ahaayay goobtayadan aan idinku soo gudbino muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha leh fadlan nagu soo biir lana wadaag asxaabtaada waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh